الرحيم maanta oo taariikhdu tahay 6 Oktoobar maalin khamiis ah waxaan la socday madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Xuseen Guudlaawe waxaan ka imaanay magaalada Muqdisho waxaan soo gaarnay magaalada Beledweyne ujeedada safarkeena waxay ahayd inaan la qaybsano xanuunka dadweynaha gobolka Hiiraan qaasatan magaalada Beledweyne oo maalmo ka hor qaraxiyo isxigay ay argagixisada iyo cadawga ummadda Soomaaliyeed ay ku xasuuqeen maanta aan wax kala galabsan oo farabadan hanti aad u farabadan ay ku baabi'iyeen waxaan rabnaa inaan fariinta aan rabo halka inaan ka gaarsiiyo waxay tahay cadawgu waxa uu idila damacsanaa sida uu wax idila damacsanaa Ilaahay wax idima gaarsiinin hal ujeedo ayuu leeyahay waxayna tahay inuu ida xasuuqo ida baabasho ida halaago go'aan kale ida karbaana waxay tahay intuusan ida halaagin inaad halaagtaan oo go'aankaas aad qaadataan runtii cadawgu waxyaaba uusan malaysanaynin oo uu ku taameeynin ayaad kula dhaqanteen oo ah waligiis rajo kama qabin ama cabsi kama qabin qabiil Soomaaliyeed in uu inta ka hor yimaado oo heeriyadooda iyo gumaysiga ay ku haayaan iyo cadaawad oo ku haayaan inuu iska wajaho oo iska kor qaado heeriyadooda kuma tashanin waxaana tihiin qabiilkii ugu horeeyay ama deegaanka ugu horeeyay ee Soomaaliyeed oo si muuqata dadka Soomaaliyeed dagaal waa ku jiri jireen waana la ogyahay laakiin qolo si muuqata oo dagaalay oo dadka Soomaaliyeed tosh u daaray namuujiyay in cadawga la iska dhici karo ayaa tiin waan idinku habaleynayaa inta dhimanna waa si dhameystiri doonaa hadii Ilaahay yiraahdo annagu ujeedadeenu ma ahan inaan isdifaacno oo kaliya oo aan ka saarno gobolka Hiiraan ujeedada aan rabno waxay tahay shabaab in Soomaaliya laga waayo halgankaasna sida hormuud ugu tihiin reer Hiiraan hadaa tiin aad hormuud ugu sii ahaataan annaga waxaan rabnaa midig kama maaranto waxaan u baahannahay wada jir waxaan rabnaa inaan diidno khilaaf iyo isqabqabsi waxaan rabnaa hadaa tiin reer Hiiraan inaad madoodaan waxaan rabnaa hadaa tihiin Soomaali inaad madoodaan annaga maanta culaysku waa nasaariyaha maalin dhaweed hadal aan ilaa ayaa si xun loo fasiray annagu waxaan sheegay kow inaan dagaalka hadii gabar naga harayn aan la joojin doonin labo dagaalka hadii aan meel kasta aan laga bilaabaynin meesha uu ka socdo in laga wado saddex waxaan sheegay inaan sii wadi karin oo ay macnaheedu tahay annagu inaan dagaal ka daalnay ma ahan waxay tahay xuduudo kale ayuu nala galayaa oo gobolka Hiiraan markii laga baxo xuduudo kale ayuu galayaa xuduudahaas kale ma gaari karno hadii aanan laga wada shaqeynin ama dadka degan uusan nala jaan qaadin waxaan ka wadnay intaasay aheeday waxaan rabnaana dagaalka in la iska jiro mar rabnaa aan ku dhiig baxnee in cadawga la soo afjaro waxaan ku kalsoonahay dadka Soomaaliyeed baraarugii laga rabay iyo dareenkii laga rabay inay leeyihiin maantan u diyaarsan yihiin inta dhiman ay u diyaar garoobi doonto gadaal laga ma kala harey Soomaaliyeed kama haray doonto hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan idin sheego saaxiib haduu leeyahay dagaalkan waa dawladda federaalka oo hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda saaxiibka kale baato waa saaxiibadeena shisheeyaha oo ugu horeeyo Mareykanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya saaxiibka saddexaad waa dawladda deegaanka ee Soomaalida ee Itoobiya oo hogaaminayo madaxweyne Cagjar saaxiibka kaleetana waa dadweynaha waxaan rabaa markii inaan sheego halkaan inaan hilmaami doonin laba qolada annaga u baahan nacod u jeedinayna iska kaayna dhigatirta oo iska kaayna indhatirta oo nagu daawata culayska uu cadawgu nagu haayo qoladaas ma hilmaami doono iyo qolada annagoon u baahanin oo codsi u dirsanin na soo kaalmaysay oo waxna tartay kuwaasna waxa ugu horeeya dawladda deegaanka Soomaalida ee uu hogaaminayo Mudane Mustaf Cagjar waana ugu mahad celinayaa sida shalay gurmadka hiili hooba noo soo gaartay aan maanta kaaga baahannahay cadawgana annaga iyo idinkaba isku si ayuu noo saameynaya waan ogtahay cadawgu meesha uu idinka soo duso oo idinka soo galo oo idinka qashqashaado ama uu rabo inuu idinka dumiyo waa deegaankeena meesha aan joogno aan ku celino na aan inta kala dhameystirno waxaan idinka rabnaa xuduud kale ma nihin marka ay timaado la dagaalanka shabaab waxaan idinka codsanaynaa hiili hooba waa idinka rabnaa cudud military aan idinka rabnaa mid kastaan idinkaga baahannahay dadka Soomaaliyeed oo kale aan baaq u jeedin waxaan rabnaa inay gacan ka geystaan ka soo qabo Puntland waa state Soomaaliyeed oo weyn oo ciidamo aan 7,000 ama 10,000 ka yareen leh oo dhaqaale far badan soo galo oo dadka Soomaaliyeed ugu garasan ay degan yihiin uguna deeqsan ay degan yihiin hadaysan ciidan noo keenaynin waxaan uga baahannahay xoolaan uga baahannahay ciidan uga baahannahay gaadiidaan uga baahannahay wax kasto hiili hoobaan uga baahannahay Soomaalida kale oo nagu wareegsanna wuxuu waa haddaan anagu daalno biri idinku aad daashaan maalin boqolo ay
qabsadaan waxaas wax shaqaynaya maahan mid Soomaali anfacaysan maaha gacmo wada jir wax ku gooyaan cadowga maanta uu nugul yahay maanta aan isla wada dilno si uusan qofba maalin u dilin waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh